السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan bilaabaynaa panelkani waxaan rabaa inaan u yeedho khubarada iyo aqoonyahanada naga qayb qaadanaya panelka. waxaa u yeedhaya marka ugu horeyso Dr. Sharif Usman, Ustaz Abdulqaadir Axmed Xasan, Ustaz Cabdilatiif Xuseen Cumar, aqoonyahanada la jooga oo dhan aaday xilligiin si soo socoto. Dr. Sharif Usman oo ah ka socda Somali Center for Water and Environment jaamacadda Muqdisho. Ustaz Cabdilqaadir Axmed Xasan oo jaamacadda Muqdisho socdo. Ustaz Cabdilatiif Xuseen Cumar oo isaga ka socda Somali Environment Conservation. iyo sidoo kale Ustaz Ibrahim Cabdilqaadir oo isaga jaamacadda Muqdisho ka socda sida shaykhaliya oo jaamacadda Jabuutiya ka socda ayaa loo daadin doona xilli doona barnaamijka badal. waxaan ku bilaabaynaa waxaan ka codsanayaa qolada inay waqtiga la ilaaliyaan sidoo kale adinka su-aalaha si doonaa sidoo kale laga sababta rajeynayna badala si aan uga faa'iidaysano waqtiga kooban inaan haysano. waxaan ku bilaabayaa su-aasha ugu horeyso sidaan sheegay bii'ada wasakhaynta ka dhalato iyo noocyada iyo dhibaatooyinka ay keento iyo xulusha iyo talooyinka wax lagu hagaajin karo ayuu barnaamij ku saabsan yahay marka aan xasuusiyo. waxaan ugu leeyahay su-aasha koowaad waxaan rabaa inaan weydiiyo Dr. Sharif Usman waa maxay pollution ama waa maxay wasakhaynta hawada iyo biyaha? waa maxay noocyada waaweyn pollutionka qaybihiisa waaweyn? sidoo kale noocyada ugu daran dhibka lagu hayo ama lagu imaan karo ama dhibaato culus lagu keeni karo maxay yihiin? su-aasha waxaan rabaa inaan weydiiyo panelista koowaad Dr. Sharif Usman. soo dhowto. بسم الله الرحمن الرحيم. pollution ama wasakhaynta hawada wasakhaynta bii'ada marka u horeysa waxaan u baahannahay inaan fahmno bii'adu waa maxay. bii'ada waxay ka koobmataa bii'ooyin badan oo la isku keenay. waxaa jira bii'ada biyaha, waxaa jira bii'ada dhulka, waxaa jira bii'ada dhirta, waxaa kaloo jira bii'ada insaanka human environment, waxaa jira built environment oo ah bii'ada la dhisay magaalooyinka guryaha. marka bii'a ama environment waxa waaye system isku xiran oo nolol ay ka jirto oo lagu nool yahay noloshaas lagu nool yahayna mas-uulka ah ama waxtar weyn u leh ama source-ka. matalan biyaha haddii aad fiiriso biyaha waa system, waa nidaam lagu nool yahay. malaay ayaa ku nool iyo wax lamida iyo xayawaan kaleeto oo fara badan ayaa ku nool. ciidda dhir ayaa ku nool, xayawaanka ayaa ku nool. hawada nolol ayaa ka jirta, waxaa ku nool bacteria, viruses ayaa ku nool. waa system dhammaantood inta aan soo sheegno oo dhan ay u baahan yihiin ay ku nool yihiin. insaanku waa system jira isaga ama nidaam jira oo intaas ku nool. insaankii wuxuu dhistay guryo iyo nolol ayuu dhistay, waa bii'ada. bii'ooyinkaas marka ayaa waxaa ku dhaca wasakhayn ama pollution. ereyga pollution weli erey u dhigmo oo Soomaali ah lama hayo. waxaa la isticmaalaa wasakhayn, laakiin wasakhaynta runtii ma buuxinaysa macnaha looga baahaya. wasakhaynta ereyga pollution definitionkiisu waxa waaye markii sistamyadaas aan soo sheegnay ay ku biiraan ama ay dhex galaan waxyaabo aan marka hore ka mid ahayn oo sun ah oo dhibaataynaya
systemskii ama nidaamyadii ama noloshii meesha ka jirtay dhibaato u keenaya marka sun inay yihiin ayaa sharci ah pollution. Okay, so pollution waxa waaye markii biooyinkaas dabiiciga ah ama la sameeyey artificialka ah sida dhismayaasha oo kaleeto noloshaasito ay dhex galaan waxyaabo aan ka mid ahayn dabiicadoodii hore oo dibadda uga yimid isla markaasna u keena isbeddel negative ama dhibaateeya dadkii ku noolaa ama sistamyadii ama nidaamyadii ku noolaa meeshaas. marka intaasaan ku muujinayaa definitionka pollution maxaa okay noocyadiisa marka noocyadiisa way badan yihiin intii aan soo sheegnay waxaa jira matalan waxaan dhahay hawada oo ah air environment waxaa ku dhaca wax la yidhaaho air pollution. pollutionkaasayto يعني حوالينا سؤال حكي كلمة هذا وصوص لكن air pollution هي جوامع هواء الصوت كشو أو وسط أي كشو وحاجة water pollution مياه ومياه وسط أي كشو وحاجة وحريرة soil pollution وعيد يدا وسط أي كشو pollution الأصل بيحصل الأوكلان قارن سهلا أي أوكلان قارن سهلا أي أوكلان وجد سهلا أي أوكلان سهلا أي أوكلان مكروه كذا سهلا الحوالي مكبيها وسطوش أما هو الطيب وكبره كل سنة لكن pollution اللي كده مثلا air pollution وحاكمنا وحنا radio pollution هو تلفونات عن استعمال radio waves أيين مثلا واي فاي pollution يوصل هذه أمور كمان ما عندي وأنا استعمال إنترنت لكن يقول لي هي pollution خطر أولينا ويسكر راعي إن وكان سبيله مركا سؤال الصوص ومساء تونس ورئيسنا وفقني حقيقي المشركة يصير وكالة نوعية المشركة وكشري هؤلاء البيئة الأعراض التغيير الضوء وسيبوا كلمة مع الجبل الأسفلية الصورة وعلى سؤال شكتنا ويديو أستاذ عمران أحمد عبد القادر سؤال شكتنا نساء نوعين هذا الرشة يعتمد على نوع بلوشي كنوع كمدين الوطن بلوشي البيئة نوع صغير وعلى أستاذ الموافقة فهيو ميلها وكيبه له هي وحيوها قرصة وطن كله حواس على وطن كلوشي موافق في استعمال سوس. بسم الله. وما سمعت عليه. حريص شيء يقول أهم environment here. iyo pollution wuxuu yahay xaraba marka su'aashaana wasaqowida biyaha iyo meelaha ay ka imaadaan iyo waxay sababi karaan biyaha wasaqowda oo ah water pollution ama contamination biyaha waxay ka mid yihiin waxyaabaha nolosha bini'aadamka kiisa biyo la-aanna nolol musala iyo hawada amida dhulkaas oo inta badan aan dalaba beer isagana ka mid waana saddexda hadda adduunyada ishu problem u hayo markii laga hadlayo cudurrada asosiyaal hadday yihiin cudurrada communicable-ka iyo hadday yihiin kuwa non communicable-ka marka culays weyn ay adduunyada u hayaan Soomaaliya markaan ugu imaado biyahaas oo hadda aan ka sheekeynay
استعمال بيها الدنيا لو كان لين هذه بيها هاي هذه بيها هاي هذه وشلها هاي مرة سوماليا ما هي لو واحد في الإسرائيل لكن حقيقة استعمال بيها الكبرية هي وين أساسا تصل حياتنا بيها كذي مرة بيها مهمة له أنا هذه بمعنى waxay samayn karaan iyo sida ay ku wasakoobi karaan biyaha inay wasakoogaan rikoorka hadda ka sheegay waxaa waaye wax dheeri qaraanka ugu imaado inay biyaha ku milmaan waxyaalaas waxay noqon karaan physical wax physical oo maxaa la dhahaa kalabka iyo ama wax muuqda biyaha inay galaan oo ciid aan wixii lamid biyaha waxay ku wasakoobi karaan kiimikool oo toxic ah inta badan okay waxay kaloo ku wasakoobi karaan noole wax dhibaateeya inay biyaha ku milmaan oo microorganisms marka caafimaadka way weeraan ama pathogens inay biyaha ku milmaan marka saddexdaas weeye biyaha ku wasakoobi karaan annaga waxaan qiyaasaynaa Soomaaliya ama gobolka Banaadir wasakoobideena inkastoo aan ku sheekeyn doona ay waxaan isku darsan yihiin laakiin waxay u badan tahay biological contamination ideal biyaha markaan aan fiirinayn misaaliga waxaa laga fiiriyaa quality iyo quantity okay quality hadda ka sheekeynaya baarada sare in iska bedelaan markay ay wax ku milmaan quality wax gaareen marka kalena waxaa waaye quantity-ga waa biyaha inay kaa yaraadaan in ugu yaraadaan ayadana dhibaato ka imaanaysa caafimaadka labada at the same meaning dhibaato caafimaadayni hadday quality-ga dhibaato gaartana dhibaato caafimaada ka dhalanayso hadday yaraadaanna sidoo kale marka dadka hadda u fadhina waxaa waaye quality-ga waa quality-ga biyaha inuu iska bedelo marka parameters lagu fiirinayo inuu biyaha iska bedeleen waa saddexda hadda sheegna oo ah fiiska ahaan inay biyaha iska bedelaan kulleedkooda iyo maxaa la dhahaa ama ay wax ku milmaan oo la arkaa ciid iyo lamida ama inay chemicals oo suna inta badan inay ku milmaan ama biological hadda aan sheegayna oo waxyaabaha cudurka sababa okay diraasooyin badan laga sameeyey xeerka biyaha wasaqaysan yihiin Soomaaliya laakiin wax calo muuqda male laakiin UNICEF oo kale waxay qabtaa Soomaaliya dadka biyaha nadiifka hela ee Soomaaliya ku nool inay yihiin 45% biyaha nadiifka helaan ama hadday cabin tahay hadday adada uses kale ay tahay meelaha qaar waxaa ku qoran boqolkiiba 30 inay helaan biyo nadiifa oo Soomaaliya ku nool inta kale bayna nool yihiin biyo wasaqaysan ay isticmaalaan marka dhibaatooyinka ka imaan kara wasaqoobida biyaha ayna nool yihiin marka nabarkaas wuxuu siyaadinaya in dhibaatooyinkeena caafimaad ee mar walba haay ahaada cudurrada Soomaaliya sida joogtada uga jiro endemiga caafimaad iyo cudurrada endemiga waxaa ugu horeeya cudurrada shubanada diarrhea disease oo ugu horeeya kolera oo every 2 year sababa dad outbreak waxaan ku sababa biyaha cudurrada jiraan oo biyaha si kale u sameeyaan anaga waxaan hadaan waa wasaqoobido biyaha meelaha fadhiya kaaga cudurrada ay ka dhashaan oo aan cudurrada noocaas ahayn laakiin cudurrada hadda ugu badan ee waddanka baabada ku hay oo biyaha ka dhasha waxaa ka mid ah kolera hadda 10 sano waxaa soo ziyaaday cudurro kale oo dhan kula oo weli aan la ogaanin yani dalmin soo socda waxaa qiyaasa inay biyaha ay dhalka yihiin oo ah kansar 10 sano ku dambaysa kansarku waa siyaada Soomaaliya waxaa loo saaray waxaa waaye hawada iyo biyaha loo saaray okay marka haddaad tagtid isbitaalada oo kale meel yaroo private ah dhakhtar aad la sheegaysatid oo for example weydiisay kiisaska kansarka soo maray marka wuxuu ku sheegay isbuuc leeyahay waa 2-3 kiis oo kansar si oo markaas patientkiisa ugu qancay oo maahay oo meel kale cudur oo laga yaabo inuu jiro noocaas iska soo qaada okay dhibaatadaas noocaas biyahaas inay wasaqoobaan yaa sabab sidees ku wasaqoobaan
beledkan aynu joognaa gaar ahaan xama biyaha waxay ku soo qoobi karaan oo lagu wasaqayn karaa si toos ah iyo si dadban si toos ah oo in loogu tarta meesha biyaha naga cabaya ama ceelasha ama webiyada ama baliyada oo dadka source of water waa in lala tago si toos ah qashinka loogu shubo marka meelaha webiyada la dejiyo baliyada webiyada waa meelaha ceelasha xamar ceela laga cabaya inta badan in loogu talagalo ama hareeraha ceeb in la geeyo wasaqo kadib ceeb si tartiiba uu biyihii uu ku gaaro second waxay ku soo qoobi karaan indirect si aan ku talagala ahayn okay maxay kala yihiin ta hadda sheegayno Soomaaliya dhibaatada haysata waxaa waaye system oo lagu maareeyo qashin kama jiro Soomaaliya total okay waxa jira waa wax bilowa mana la dhihi karo waa ka shaqeyno sida ay u rabaateen qofka oo hadda ka shaqeeya qashin marka Soomaaliya uu heelay maxaa la system lagu maareeyo qashinkaas oo noocyo badan leh guryaha ka imaado cisbitaalada oo khatartooda leh ha ka imaado institutions ha ka imaado xala commercial iyo industries shay'ooyin like small industries ha ka imaado ana ka shaqeeyo wax lagu karsaa meel lagu kala bixiyo ma qashinkaas isku darsama oo guriga cisbitaalka iyo suuqa iyo institutions iyo waxbarashada cilmiga sameeyeen qaabkooda ay hazard yihiin systemkaas marka oo maqan wuxuu keenay qashinka inuu meel walba siiyaan qashinka inuu meel walba siiyaan oo Soomaali lahayn taasaa waxay sababta siin daarida qashinka xaafadaha iyo laamiyada iyo wadooyinka adkaha iyo kan biyaha lagu waraabiyo wadooyinka ama xaafadaha hortooda waxay keentay inuu siin daarida biyaha ceelasha uu wasaqeeyo markuu roobka da'o ama markay wax kala imaadaan iyo biyihii si tartiiba ay ku gaaraan xalka mid kale waxaa markay dhibaato ka dhacdo oo sida hadda ay wax ka socdo kala balweyn oo kale wax socdo kale markay dhacdo xala roobka oo kale qashinkaas jaanis waxay helayaan ay ku gaaraan ceelasha iyo ama biyihii kuusay dhul inay gaaraan jaanisra mid kale waxaa waaye markaa leedahay system la jiro qashinka ugu maayo waxaa ka mid ah system bulaacada malihi dhulkan oo lagu sugo because suuligiina ama booseeradeen markay bulshadaan waxaa lagu baneeyaa meel ku dhow ugu sii bixino oo wada iskaysiin magaalada waa wada iskaysan meel nadiifa loo gala mar walba marka waxaa u taaganahay haddii roobka dhibaato ay dhacdo in maxaa lahaa ay cudur soo hajuun oo outbreak noqdo ama daaf iyo maxaa lahaa iyo shuban iyo xasaasiyad iyo markuu roobka soo dhacdo wax magaalada qufac ka socday oo dhibaato mar walba waxaa ku joogaya marka dhibaato because waxaa loo aasan qashinkii iyo wax sababa mid kale waxaa waaye in qashinkii waxaana si toos ah loola taga maxaa lahaa had magaalada weliba laakiin meelaha webiyada ka jiraan Soomaaliya gaadana beledweyne iyo afgooy iyo balacad iyo dadka suuligooda waxay ku barayaan webiga suuligooda webiga ku barayaan noocoo lahaa webigaasaa main حاول كل الجوال معنا بدأ مثل اللي قصته عايش حتى يشجع بدأ أيضا شركة لها أما أشخاص أما institution استهداف حمل قشين قالوا عيدين هذول ليبيا مصوريا بدأ يبيع حكم إذا قبل iyo kawaan baray oo kawaan oo iiga oo kul iyo kawaan iyo qado ugu laabnaa liida kamida jasiira kamida si toos ah qashinka waxa weeye degmooyinka soo haraysan ta laga yaabo in si weyn oo uu xireen ama ay ku talgalaan inay badiyaan waa sababaha qof walba meesha waxa laga yaabo inta fariisata boqolkiiba 30 ama wax ka badan inay talon xasaasiyad ku qabaan iska dhaafteen oo isma dhibaato ka taag xasaasiyad oo waa ku xanuunsan kale waa balki waa loo sameeyay oo sameeyay marka solutioniska iyo insha Allah waa kuma doona wanaagsantii soo saray sida fiican ee loo faahfaahiyay waqtiga aan mas'alada marka waxaan ku xijiyay su'aasha xigto ustaadka cilmiga qashinka iyo maareyntiisa iyo muhiimadda uu leeyahay waxaan weydiiyo su'aalahaas
السلام عليكم ورحمة الله. Dia sudah syukur kalau asyika gunahan di waktu yang kita ini berada. Ayah sama berdiskusi kerajaan kuibunya kesudahan, kuisna kesudahan, saudara buku kesudahan, buku kesudahan merah, buku kesudahan merah itu yang hari terlalu bersyadah. Melu itu benar untuk asyik kesudahan. Daerah hal hal kritis sama hal bos banyak. So, asyikkan agama negara yang wahana siwa san waktu ini arnat bersih dan harus berlalu. Mereka harus berdiri dari asyikkan lah asyikkan yang mana kita. Ahmiyat kita lagi dalam asyikkan Islam. Yang mana negara belum sisa hal negara. أقول هذه عشان الصحة السكينة من الكلمة إن هذه community إن عفنات كل في الأمور وصار الماء سوى كلامه بديع عشان كل حاجة أقول هاي مثلا زي ما قلت إذا هو مثلا ما يقولون ما يقولون واسطة سماه ولا يجيبون يجيبون كلا بالبلد سو بديع أي بينه كأحد بدها di sisi hadapan mereka, siapa kalian tu ibarat mati, di alam pun mau lahir mereka. Ayatnya mereka pilih apna pilih kalau yang kata amat sisi hadapan mereka. Dia sisi hadapan mereka ibarat mati di mata mereka sudah. Siapa kalian tu asyik mati dalam sisi hadapan mereka, agak yang sebenarnya. Masalah itu tidak ada, masalah itu tidak ada. Ibarat tidak lalu, kemudian tidak ada dua masalah itu. Kemudian agak sama. Kemudian ada yang itu, walau syabab, walau syabab ini kalau yang sisa itu kabarnya, iyo kabarnya yang awal kerja ada. Tapi hal itu bukan begitu. Wahai ayat ini. Inti kamarnya kamarnya hadir kapan? Agak seperti yang saya. Lalu agaknya asyik menantang khusus lain. Itu asyikku karena apa? Kerja saya aktif. Mereka asyik juga harus bersama. Sementara bersama istri asyikku karena asyik asal difinai itu bagi keresan tinggalan. Hal khusus ya. Malah dia kalau orang أيوة على وسيلة سريعة. وحوار فرحة هنا السنة الأولى. لكن شو كمل الصومالي وقالوا تشبيه سواء ما كشف سايق. أنا بعض البلاد طبعا الصومال إنفايرو كبيرة لكن يسمعها قالوا لي هذا تبتدي تنصح أبوي عايز يروح Ini loh, orang PQ, kayak PQ, kayak mana? Dan saya tahu orang orang kata itu kan dia kan. Oleh sebab itu, kalau itu sih apa ya? Kalau ada bahasa, lain mereka saya ada itu. Silo kalau itu, apa istilah kalau green job istilah saya, oke. Kasih kayak hari, sosial media, asli, oh ini siapa yang orang وحيران لا نريد استعماله عشان كل ما نعيد واستعمال ضيانا أنا هذا حاولنا أنا ترتيبات عشان تغير ولا فبرز خيالها واقعها إلى خطاب لنا ويعود له سوى كلا تبعون نقل وروم في ريال رصاصي إن تبادلنا إن kita sudah belum berhati itu belum apa yang kasih dia di dalam semuanya. Sesuatu yang belum berhati sudah. Uji generasi kerja, ibu kan di sana yang hari. So anak kita semua di sana kan, sisa apa apa sih. Baik, sisa harus belum apa. Maka kita sekian ayo.
functional elements كلية waste management كل قدر أنا قد الله بقول أصلاً أنا ولا سبع قدر عنه أصل حقيقة أنا أصلاً أشي كل سوي كده بكرة ويسكت في عشان كيسوس على كمية أو كمية على أسبوع عيد ولا أسبوع ما بشيء أكتر كمية أو أكبر هو كمان بيجي سبع كلام ما يعني عشان أنت مهم كويس أنا يعني بس وقدرة إيجاد هذا المكان كله marka laga qaadana badankiiba qoyska jawaan qashin ku haya gaariga wiilasha la socda ee magaaliga jawaanka qoyska la soo celiyaa jawaanki marka qashinka lagu dadaalay gaariga oo qoyska kasaaso kala jawaankiisa ku xishto meeshii loogu talagalay in la geeyo qashinka magaalada ku dhamaado gaariga siduu ka keedayahay magaalada dib marka waxaa ku arkaysaa meel walba qashin هذا القشية الخاصة وحاكم السدراء ميلها هذا القشية اللي يسوي استخدام كلواني مالي ومترجع استخدام وحالة جي عبارها كلوانية قشية كان يجزيه لابد وحاول مرة إليه بيها وسقينا وأنا كنت بيت بلس كده مستقام مكوا أريد بقى حل وحصل شلون السؤال سأل لو ضغط السنة إنه فهمت السؤال هو التشريف مع رأي التقشف ويبدأ إلى مع رأي التقشف كان المهم تهي وحيابها أقوين oo keenay in la maareeyo qashinka waa in la badbaadiyo caafimaadka dadka laakiin laba arrimood oo muhiima ayay u baahan tahay waa midda ugu horreysa fikrad ahaan shacbiga ku nool deegaan oo la rabo in qashinkooda la maareeyo inay fahmaan aaminsan yihiin isla markaana iskaashi ay la sameeyaan hay-adaha maareynta qashinka sameeya macnaheedu waa maxay haddii qofka soomaaliga ah oo guri degan uu aaminsan yahay qashinku inuusan dhibaato lahayn ama uu aaminsan yahay dhibaato uu leeyahay laakiin haddaad gurigaaga uun ka bixiso oo qaadiso waa ka dhabaad waa kaa dhamaaday gurigaagaad ka qaaday guri kale oo dariskaaga eradiisa dhigtay ama waddadiina maraya oo ummadda ka dhaxaysay ayaad ku qaadisay soo qofka ma aaminsana konseptiga ama fikradda ah in la maareeyo qashinka oo laga fogeeyo nolosha okay taas waxay keenaysaa in qof walba qashinkiisa uu niyada ku qaadiyo markaas ummaddii uu cudur u keeno xoolihii noolaa uu cudur u keeno ka labaad waxa waaye inuu jiro system ama nidaam oo u talagalay in qashinka lagu aruuriyo taas wuxuu ka imaan karaa marka u horeysa dowladda hoose oo samaysa nidaamkaas magaalooyinka waaweyn مسؤول وحكى عشان كأوروبيتي هي معرفتي سدولة هوسة دولة هوسة هي مركو رئيسة وسمى صحافة تستمر عشان كالسوق كانوا تدري بنا أي أوقاتو مالي هو تلاقي أو أي أو على ميسي إن عشان كالوفوي وحي راهولان فيلس أوكي وحكى له جرك البنيان بعد بس وقت لبيت الشيء أو recycling يبريوس recycling-ka waxa waaye marka plastikada ama dharka duuga ah waxyaabahaas la isticmaalay foom kale loo sameeyo loo isticmaalo maalintii ka mid tahay waxaa kaloo jira waxa la yidhaaho reuse ama dib u isticmaalid waxa waaye markii dhalooyin lagu keenay muxuu ahaa wax kale dhalooyinka waaweyn oo 1 litir 1 litirka ama 2 litir qaada oo ama saliid lagu keenay ama lagu keenay shaambo ay dadku ku shubtaan ay wax kale u isticmaalaan yani dhalooyinkaas xaafadaha weyn waxaan guryaha sokorta lagu shubtaa qaar cusbada lagu shubtaa
يوسكاس سعيد لك يكمل هاي أصلا مهم لكن عقبة الأمور الموت على وقوع الشعب الصومالي لما من سنة كمان على سنة مهمة إن كشيء كلاماريو أو كشيء كلاسكفوبيو أو لا كنترول أنت الأمور يجعلنا أعمل يعني هو عن معناه بيل سيد كسر أما برميل عادة ولوسي كيرو تلاقي إيمانا يولا هذه أي سنة بتاعها كنا أقول بتاعك كرت سجلات الأولى أو أو بدينا يوم بوليشن وسمينا ولبقى أعمق بلاستيك يقشف اللجوء كريه إنه يهي كاربون دايوكسيد مونوكسيد كريه معها كيميكاليز اللجوء هؤلاء أي جرائمات أي تطبيق مركا صدق راس أهمه recycling reuse iyo waste disposal oo ah in meelo loogu talagalay qashinkii la geeyo waxyaabaha jira kaleeto waxa waaye oo maalin ka mid ah boosaneerooyinka reer walba maadaama uunan jirin sewage treatment oo qashin magaalooyinka waaweyn waxay leeyihiin qashimada musquro oo dhan tubooyin ayaa wada qaada hal meelaa la isugu geeyaa waa la kala saaraa wasaqda adag fertilizers ama bacrimin beeraha ayaa loo isticmaalaa waxa liquidka ahna biyo nadiifa oo la cabo ayaa dib loogu soo celiya taaba jirta marka taa waxay keentay inaan haysano boosaneerooyin oo reer walba uu boosaneero meel ku haysto boosaneerooyinkaas kama faa'iidaysanaan faa'iidada ilayhi waxaa ka mid ah gaas waxaa ka samaysma la dhaho methane gaaskaas methane-ka ah waa la shitaa nal ahaanna waa loo isticmaalaa gaaska cuntada oo karsadana waa laga dhigaa so reer kasta wuxuu heli karaa gaasku cuntada ku karsado boosaneeradiisu ka heli karaa nalalka uu shitana wuxuu ka heli karaa boosaneeradiisa qalabka loo baahan yahay in lagu xirana ilaa $1,000 oo kaleeto ayuu leeyahay marka taana ka faa'iidaysano laakiin macnaheedu waxa waaye dhibtiisa ayaan helnaa ee eegtiisa ma helno marka intaasa kusoo gaabinaya ومسألة الدكتور وقت لا تنبير قررنا معلومات ضرورية معلومات رسمية تكون الوصول إلى المركز القصة غير أسهل معلومات ضرورية نشتري شحات الدول نوعية يسموها يوحى كياني يوحى كبشي قابل وماري يبدأ إلى وحنا كنا تلوين إلى ويدين مباراه bulshada waxay ku talahayeen sidoo kale waxay ku talahayeen dowladda iyo maamulada iyo xukuumadda waxay ku talahayeen sidoo kale arrimaha cilmi-baarista iyo jaamacadahaasi waxyaabahaas wacyigelin iyo aqoon badan looga helo looga badbaado inteeda ay faa'iidooyin leeyihiin loo helo waxaan hormarayaa ustaad cibraan axmed cabdiqaadir waxaan weydiinayaa talooyinka community-ga bulshada aad siin lahayd maxay tahay ku aadan arrinkaas adigu soo koobayo bismillah waxaa xiriir weyn ka dhexeeya horta socio-economic status iyo qashin community-ga laga qarsano faqriga waxbarashada oo liidata iyo dadka oo sida soomaalidii dadka oo wareysan waxaas oo dhan waxay ka qayb qaadataa qashinka iyo loonka xamar waxaa la dhahaa bishii waxay soo saartaa 2,500 mitir oo qashin wareysigaan dhegeystay oo lala yeeshay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee xamar qashinka ka qaada waxaa la weydiiyey xagee geysaan dhowr mara su-aasha la weydiiyey wuxuu geena geena markaa هذا سوي ديما حكينا لي أسئلة ومن هو رسيله من جيل مرقم لا دولة كلامنا إنه شيء ليش نقاش كان جيله أو هذا حقيقي إلا أن يرسل أشخاص أو رسمي ديننا فشك بيجي دين أشكال community وحكوا عليه مرة
inay ogaadaan dhibaatada ka soo wajihi karta qashinka tahada sheegayno social status bulshadaan ma ogaado soo dadka sheegaya qashinkan inta iganaayo ma ogaado beri kusoo laabanay soo khatar leh soo la daweyn karin cuduraan la daweyn karin cudur halistiisa leh hadduu walba generation soo socda saameyna ma ogo marka bulshada waa in mar hore loo sheegay dhibaatada ka dhalan karta qashinka siduu kusoo laabana asoo ka dhiban sida hadda markaasay bulshada waxay keeni karaan alternative ay ku yarayn karaan qashinka marka bulshada waxa u hayr laga rabaa wacyigelintaas kadib markay dhibaatadaas ogaadaan kadib inay qashinka yareeyaan guri walba inuu qashinkiisa yaray qaabo badan loo yareyn karo ayadoo iyo faqriga waxaan faqriga iyo qashinka saaxiibka badnaashaha qashinka iyo faqriga saaxiibka ilaa waxyaabaha iibsanaya waxyaabo oo waqtigooda yaryahay wax walba waqtigooda ka isticmaashan qashinkaaga waa badan badisku marka in bulshada ay u jeysata hadgadi waxyaabaha waqtiga dheer leh oo aan qashin badan sameynin sidoo kale bulshada haddii laga wacyigeliyo dhibaatada waxay ku baraarugayaan inay qashinka ilaaliyaan inay ka fogaadaan inay qashin badan abuuraan inay biyaha bulshada kale ka ilaaliyaan qashinka socda xaafadaha taasa waxay leedahay barnaamijdaas weyn inkii bulshada siiya inay qeyb weyn ka dhalo sida tan sii ka bedelan oo miidiyaha iyo maxaa qaybaha kala duwan ee miidiyaha iyo bosfas ee loo isticmaala bulshada in loo sheego qashinka dhibaatadaas uu leeyahay taasoo ay ka imaanka waana dhibaato aan maalin loo heli karina cudurada ilmaha halkeey oo shubanada iyo malnutritionka iyo hooyooyinka masaakiinta nafta ku keena waxaa waaye qashinka وحيد لنا ما كسر مشهد رأي يعني ما alternative واحد هو بدل كان على يكون رجع عشان طبعا سلاء مشهد كله وعي جديد ووعي ناس لا إيمان كان على إنسان أيوة إيمان على قوم كل ودي سامين تسوي يعني كمان أستاذ سؤال شيء طبعا جديد أستاذ عبد اللطيف سجل الصور waxay tahay inuu si hadalka uu culayskiisa isaga loo maxay dowladda u soo jeedinaysa xarumaha waxbarashada xarumaha cilmi baarista sida macadka isos oo mid ah iyo sidoo kale jaamacadaha ardayda waa u soo jeedinaysa hadalka loo qabto sida hadda jiro environmentka environmentka Soomaaliya waxaa ku ka in waxaasoo dhibaatatan sheegaynin inaan waxba laga qabo oo weliba si scientific ah wax looga qabo media waa laga yaabaa website macayna inuu ka qabo articles ka qoran oo issue markaas tahay uu ka qabo laakiin si sax ah cilmi-baaris lagu sameeyo ma jiro daraasad sheegaysa qoyska Soomaaliya magaalada Muqdisho ku nool gobolada dalka magaalooyinka ku nool inta qashinka soo saara quantity intuu gaarsiisan qoyska intaas oo kg soo saara hadii karto shakhsiga intaas soo saara hadii karto so waxa ugu horeeya kula dalin lahaa xarumaha waxbarashada macaahidda instituyada ay ku ka tahay haysos in waxay ahayd cilmi-baaris lagu sameeyo guud ahaan barnaamijyada environmentka Soomaaliya haysto gaar ahaan qashinka iyo wasakhowga biyaha iyo wadaha sidoo kale waxaan kula talin lahaa haddii ay caawin karaan waxaan dareenayaa gaar inuu jiro aan maxay ahayd maamulka dowladda hoose oo kale meelaha kale dowladda kusayso inuu gaadis u jeediyo dhanka maxay ahayd shuruucda iyo sida loo dejinaa culisadda taas kuhayso soo marka in maxay ahayd in ayagana gurubkooda ay ka qaataan shuruucda marka la samaynayo ay gurubka ahaadaan maxay ahayd talab iyo tusaale ay ku yeeshaan sidoo kaleeto waxaan kula talin lahaa xarumahaas waxbarashada iyo jaamacadaha in maxay ahayd
la badiyo wacyiga ku saabsan environmentkiisa lama ilaalinayo waxaan dareemaynaa wacyiga inuu aad u yeelayaa bulshada ayaga ku dhibaatada inay ayaga ku soo laabanayso haddana sidaasay tahay bay sameynayaan waxyaabaha oo aadka looga yaaba bulshadeena waxa dhibaato inay qashinka u yahay ayaga ugay sameynayaan waxa aad looga naxo sidoo kaleeto waxaan ku talin lahaa maxay ahayd aad loo badiyo seminaarada iyo maxay ahayd oo quseeyo arrimahaas jaamacadaha ahaan waxaan kula talin lahaa in keliga environmentiga magaalada muqdisho jaamacad ayaa lagu dhiiraya hal iyo laba iyo saddex jaamacada laga yaaba inay leeyihiin jaamacadaha magaalada ku yaalla tiradooda oo kuwa dhintay marka keligaas in maxay ahayd horumariyo si aan u helno khubaro badan oo keliga environmentiga waa sidoo waxaan muddo doonaa su-aalihii soo jeedinaya diyaargarooba su-aasha dambayso ayaa expertska horuu weydiinayo ayaa noo dhiman baksi oo su-aashaada dhamga waxaa su-aasha dambayso aan weydiinayaa dr shariif inuu isaguna talooyin ka ku habboon dowladda iyo maamulka si arrimaha hadda ka shaqeyna looga qabto maxay yihiin talooyinka usoo jeedin lahay dowladda horta dhibaatada jirta hadda laba arrimood ayaa qaybka ah waa mid ugu horeysa waxa waaye in sistemyada ama nidaamyada loo baahan yahay in la dhiso oo dowladdu ay leedahay shaqadeeda aynan hadda dowladdu diyaar u ahayn ama aysan tabar u lahayn in ay samayso taas waa dhibaato taasna waxay xadidaysaa wixii tala la soo jeediyo haddii aan la samayn karin yani tala fiican ma noqonayso laakiin haddii aan sheego waxa waaye in dowladdu ay bilowdo sidii loo dhisi lahaa ama loo naqshadeyn lahaa sewage system magaalada muqdisho ay leedahay xataa in design-keeda lasii bilaabo waa talada koowaad waay laba dhibaato kale aan sheegay waa midii hore aan sheegay shacbiga soomaalida qashinka problem uma arko qofkana haddii uusan problem wuxu arkin yani dhibaata horsata iska xali uma noqonayso tala u qaato marka shacbiga soomaalida waxay u baahan yihiin inay fahmaan in ay problem ku fadhiyaan yani inay miino ku fadhiyaan taasoo ah boosaneerooyinkooda oo biyaha ay cadaan kulli gareeya miitaan aan soo qaado guri kasta boosaneeroo leeyahay xaafad kastana ceelay leedahay ceelkaasito waxaa kulli gareeya boosaneerada wasaqdeeda okay soomaalida hadda waxay sameeyaan dadka ka bixi karo biyo maxaan garan karo biyaha la cabo caafi ayay gataan biyaha kale oo ceelka oo xaafadda ka yimaadana cuntada ku karsadaan waxay aaminsan yihiin in wixii bakteriya iyo balaayo ku jirtay ay dadka ku dhinteen saas ma aha laba dhibaato ayaa biyaha ku jiro biyaha ceelasha oo loo yimaado oo aan la cabin oo laakiin cuntada lagu karsado laba wasaqoodaa ku jirta laba dhibaataa ku jirta mid waxaa waaye bakteriya markaa karso biyaha way ku dhibata laakiin tan kale waxa waaye chemicalism ama kiimikada sunta ah oo biyaha ku jirta haddii aad kariso iyo haddii aad sida lagu cabto isku mid waay because kiimika marka aad kariso waxaa laga yaabaa in dhibaatadeeda ay sii korto oo chemical reaction uu sii dhaco dhowr kiimika ayaa ku jiro kiimikadana waxaa la ogyahay kiimikaliska kala gedisan reaction inuu ku dhaco marka la kulmeeyo si aad kiimika reaction ugu samayso waa inaad kululeysaa marka balaayo baad sii qarxisay ma ahay waxaad iska yaraysay ma jiraan okay so qofkii aan aaminsanayn marka oo waxaas oo dhan aan u jeedin balaayada aan u jeedin balaayo ma aha tan haysata taas waay wacyigelintaasay tan la sameeyo okay waxyaabada samayn kara marka dadka hadda wax qaban kara waa ganacsatada waa inay ka ganacsadaan waxay lacag ka samayn karaan
qashinka hadda la fogeeyo hay-ado private ayaa sameeya oo lacag ka sameeya laakiin dhibaatada waxa waaye looma asaan garaynin looma samaynin meel ay qashinka dhigaan si dowladda taasaan kula talila in ay meel u qabtaan qashinka la dhigo adiga cafaday ka qaadayan cafada lagu qaadinayo markaad u socoto dadka reer magaalada ka baxsan oo ka hadlaya u socotay waxaa arkaysaa qashinkii laga qaaday xaafadda hodan oo jidka labadiisa dhinac ayaa la arkaysaa intay sii socdaan way kala tuurtuurayaan dhinacyada ku tuurayaan andee markuu baabuurka ikraaqada horeys oo kala jireynayaan xaafad kale ka qaadaso maxaa loo yidhi barakaad ka qaado barakaad lagu geyn waxa waaye hodan ka qaad muxuu ahay ka halgeyn yani xaafad ka qaad xaafad kale loo geyn waxaa kaloo jira oo shirkadaha private ay kala karaan waxa la yidhaahdo incinerators waxa waaye warshado qashinka guba okay waxa waaye dhismayaal waaweyn oo foornooyin aad u kulul leh oo qashinka lagu gubo qashinka waa la kala saaraa qaar recycling ayaa lagu sameeya waa wax isticmaal laga samayn karo ama laga samayn karo muxuu ahaa plastic cusub oo dib loo isticmaalo qaarna waxa waaye waxa loo yaqaana household garbage oo cuntada soo hartay sida babaayga iyo qudaarta qashinkooda caleentooda cuntadii soo hartay kuwaasita waxaa laga dhigi karaa fertilizers beeraha loo isticmaalo qashinka soo haray waa la gubaa kaamarka waa wax la samayn karo laakiin ganacsatada ay u baahan inay sameeyaan taas marka intaasaan kusoo koobayo wasalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسيتي كمان جوابي شحاتي وافية. وأنا أوقف إلى سؤال قطعنا سي يعني سؤال يوسف بن العين. نقول الله وعيدا ويسأل عبدي سؤال شيء وحي طابني الساعة ممكن لها هذه وسط مانجمنتي تلوي كتب لي بحنا سبيشال عن سؤال ودينا تشريفه ودينا wuxuu ku taliyey in landfill system la sameeyo oo dowladda kula taliyey ay dowladdu u cayinto meelo qashinka lagu daadiyo ama lagu manage gareeyo waxaan rabaa marka inaan ogaano maadaama dadka meesha fadhi u badan yihiin generation aan soo gaarin dowladdii hore systemkii ku shaqayn jirtay siduu ahaay landfillkeeni hore soomaaliya siduu ahaay intay dowladda qashinka si u manage garin jirtay ila qashinka hadda ma bilaaban أشوف جري ولي ونجري دونا لكن هذا شيء سوبر سبيشال مدرسة سوى هنجري لأن في نجيل حاجيلو إهاب مدرسة بحصل بتاعي كمبنية ماشي على القطاع سو ده ريفرنس إنسان هاي روحه وصل تقول له إني راعى مني يسيستم فيه ما جت كمية ريفرنس يورا مثلا سلاس وش ماشي كنا كنا تعملنا صحيح جواب سؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الكريم سامي سؤال مرة لما تقولين يا مرتدى أمس كقيمة عن الموضوع قيمة عن تشريح تبكير المياه هذا السؤال القضاء أحيونا على الموضوع أن كل ضرورة دورية ومسكينة أخذ الذين يمددنا كل اللي صدر كراعي وخليه صاحبه وشكتها نجد عليه وباهرناhay meeshaas ayay hilibkeena meeshaas saarnaa marka qashinka qaadayso inaan ugu soo shubin ayadaas soo martay qashinka laga dalbo meesha aan qaadi lahaa su'aalaha kale waxa waa marka godka qashinka aan qabto diyaarada sidee loo qabtaa xafaayada ayaa la isticmaalaa hadda aad soo badan xilliga hore xilliga anaga qalan jirnay dad baa la isticmaali jiray waxbaa laga qori jiray dad baa la qadi jiray iyo kulul bay kori jireen hadda xafaayada yimid الحقائق على وسط الكورة وطريق يعلم الحقائق أي لفت الكورة هي أسئلة الوطنية وصلت على الأشكورة لكلهم أشاء الله مركز كل من يفيد وكلا الوقت تصير على المطبعنا قدوة الكيني سواء عن كل قدوة الله القرآن جوابها قول عصيكم عنديكم وعصيكم قدوة الله القرآن لكن جوابها قول وحاسب حاسب عن الله هاي حال كذا جوابها قول عصيكم وكانك عثمان وكرم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم مصطفى عبد الله خبرته وحويتي لهاي دكتور وكسي دواجيه سؤال طبعا إسلام وما أمر لك حبله مكتشف حنا ونهاية سارهان يعمل شركة الجميل
sanadkii hore ardadii bixiyaan ahayn anaha inkastoo aniga baktigaas aan diyaaro haddana bakti la diyaaro waxaan arkay guud ahaan macnaha maadada wadanka markii laga hadlaayo ama sourciga biyaha laga keenayo iyo musqulaha waxaa jiro macnaha xaddi la xadido ilaa intaas inay isku jiraan weeraan toban mitir oo kale inay isku jiraan muqdisho waxaan ognahay shaksiga sourciga biyaha keeno inuu yahay shaksi ka ganacsada gurigiisii ceelkii iyo musqushiisiina isku waagyaalaan sidoo kale wadanka ama sourciga wuxuu noqon karaa ama surface ama subsurface surface inta badan oo muqdisho markii la yidhaaho iyo subsurface waxyaabaha saamaynta loo keenay ceelashana waxay ka yimaadeen subsurface ka yimaadaan dhulka hoostiisa biyaha sii moogana oo musqusha uu geynayo aan ku aragnay baktigaas iyo water table oo isku jiraan ugu yaraan nusmitir oo ka yaryahay wadanka biyaha inta isku jiraan iyo musqusha markii la kala jiro sab inta isku jiraan wuxuu ka yaraaday nusmitir oo ka yaraaday okay saamaynta ay nagu yeelan karto ceelkii iyo webigii iyo ceelkii iyo musqusha isku ageelay markii loo fiiriyo saamaynta ay ku leedahay subsurface midee loo badan okay mid kale markii la yidhaha seen ku xallin karnaa dadka sourciga biyaha loo keeno waa dad ganacsatee gurigiisoo ka dhex ganacsaha ma suurogala ma xal sidee lagu heli karaa shaksigan in lagu qanciyo inuu biyaha meeshuu ka keenayo inuu ka fogeeyo aagaga ay ku yaaliin musqulaha inta badan بسم الله الرحمن الرحيم. بدعي وأمين أبو بكر عثمان. سأكد حرب تلوين بدن السود جيريان تلوين كلابا كميتا نسي في عام واضح يعني. قشن توقع شيء أنا تفكيسة لكن ما لها صوص وكمانة وحاول بدن سبتالة يوكيلة يلا حاجة ووجود. يلا وسكتالا محاكاتا وسكتالا وأنا أسمع شكرا وحاشية أكثر أنا قطرني كهاي ميرو بيجي قطرني كهاي marka iyaga laftirkooda talooyin waxaa loo qaltay munaasaba oo lageyn karaa inta gaarin koornadii iyo inta dib loogu faa'iidaysto midda kale ustaad cimraan musiin baan weydiina oo ah wuxuu dhahay qashinka hala yareeya xaafadaha qaabkee ugu fiican loo yareyn karaa والسلام عليكم ورحمة محمد نور وكمان جلسة جامعة المقدسة هذه محاولين يا سؤال المكتب والدكتور شريف أي واحد يروحين ولقيت يسافروا يسافروا الصومالية بدنا مسؤولها وصل يردا خاب نوعي أيضا فكرة ما دام أكثر تين هاي أرد سنة كفاية يسافر ولا بس ما يكرو دبلي بشيء كلام يعرف كرفانته مثل كانوا حكوا في البيئة هدي على الكرية هدي على الكرية واسمه مركز حال استعماله. ومسيحي جاب شرط لك أقول هذا وحقق السؤال هو سؤال يقصر صوتها الصومالي وكان كنا قانعين جدا على بويال جالس على محكمة الكوسكا كفايدة هذا الشيء يصير عشان كأيه يساعد يصير أفضل من كأيه عاقبات بسكول بسكان عسير تقول أو حتى صوب كذا لفتوا السياق وكان الله استعمال كلام فحافظ تراجع جالس تدري لفتوا له ناس الوبر هي وسؤال القوات سؤال حتى تشريف التشريعي بيها عرشة أنا كاستعمال عاقل كل يسوي فلان حضر اللعب وقت أخوي كل الكثيرين حالته على مسألة مساريها وكا السيدة حال فيها حال صغيرة سؤال شخص وسجلنا قبل يجوا رسالة أو ديسي كان وصل فيها لفتيسة لقى شيء يوم وسيستمر ومقالة كفها وسمية mise waxaa la dhihi karaa xaafadana oo ku badan yahay xaafadana oo keliyahay isu gudbayaan ceelasha laftigooda waxaa leeyahay ceelabara wasaq badan kana hor mise
يعني ولو اسمها كتاس أو قف حافظ إلي بيجي وقف حافظ محافظ هذا تبليغ بيجي كتاس واسمه سؤال اسمه وقوات مسيطة. ومسيطي طبعا ضل أيوة بس لا والله سؤال ضوية موضوع جوابها يبقى ورا عمرنا تشريف سؤال مسيطي ده عمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي سؤالها سيدي السلوك الحجاب ماشي جايو سيدي مسهلين ايام بايام مسهلين سؤال هو رئيسي هو لان فيك اما مش اشهر تلوث بسيطه هذه سؤال انا كده هوست ايام قصدي مركي وسؤال كويدي سبب الوقت هاي عقل وابر ايام بقولي markaan dugsiga sare ka baxay Soomaaliya waa ka dib waqtigaas ay Soomaaliya joogay xaafadaha xaafado aan weligii tegin ayaa ku jiray ilaa xaafado aan weligii tegin ayaa ku jiray soo ma soo socodin ma garanayo meelaha qashin kala geeyay yani tan qosolkiga keentay taas waaye laakiin waxaa jiri jiray nidaam wuxuu ahaa xaafad kasta waxay lahayd meel loo baneeyey يعني لقيت انت فوق كانوا هي لقيت ولو بني قشم وعلى كلمة لي كونتينرو وديزاين لي قشم كلوش سو دولة هوستوي كلام اللي تبغى يكون يسوي في قشم واحد قشم وعلى كلمة يا ماشي على كلمة كمان قاعدين يصير وقع بسوي إذا كونتينر ده يعني لا أفرشان كونتينر يا بابور كمان أي بابور كسكوتين وكبسات أيها هذا هو ترى كذي وقال أيها اسمه بيجي معنا أوكي إنت سكتني يا أشوف الكوتين يلا يلا بيجي من كذا لكن هو أدري نظام أشوف السوق يروح عبرها أو الأرض أو على الآن أوكي عندي أن سمعينا لكن دولة نبتدي العكس عن أي جهة لهي هذه كنا حاسين هذا بالضبط. أوكي. خلاص مرة أنا أسمع سؤال عن بين أكون بروح أوائل. قف هذه الوقت شيء استقطاب كلها يا. دي الوقت ركابي ما نقول إلها هي بنات يوم الوقت. حالها قف كاسي. أوكي قف كاسو عليه كلا مركز جبته دعوة أكبرني لمشهد إله هاي سكيتو أبو أماني لكن contradiction أنا أسمعه إمام واحد إنه قف أوه أشوف ليش إحنا مقطعين أقول لك إله هاي ما في وجه له دعوة أسمعه تبغى تبغاس ما فعش إلهي هو أيه كل أبو هاي وما هو تبغى وتلصق يا أيوب سؤال سي أو هيك حفاية هذا صوت رتي وحضرنا إن إديش مثلا خشين مرة ضد أي دانية قلت الله سبحانه وتعالى وهو كذا إن وبسايكل كلايو خشين مرة خشين كستوبر وتوه بسايكل سنة لكن بسايكل كاسيتو وديت كابت نقول وحب قادميسا mid walba dhowr waqti waxa mustahlan waxa waaye dharka ka samaysan suuf dhar yani kontonka ama suuf ka samaysan dhar waxaa jira naayo ka samaysan raayo mid ka samaysan guul mid ka samaysan dharka ugu fiican oo dabiiciga ah waa dharka baatiyada waa dhar qabow oo korka u roon oo dabiiciga waxay qaadanaysaa dhulka marka lagu tuuro inuu recycle gareeyo 5 bilood markaasay duciidu ka mid noqonaya okay waxyaabaha xafaayada ayaan hadda u soo xasuustay xafaayada marka la tuuro in ciidda ay recycle garayso waxay ku qaadanaysaa 450 sano okay 450 sano ayay ku qaadanaysaa waxaa ka sahlan birta كسرية ما كان ملاك يعني لا يدرى عيد اللي يساعد كمسون قال إذا كنت تصل okay so
naylonka dharka naylonka ka samaysan 40 sano waa xaashida 6 bilood waaye because xaashida waxay ka samaysan tahay geed alright aan fiirino bateriyada waa iska duurnaa waxaan ku samaysana waxay ku qaadanaysaa 100 sano in baterigaas iyo ciidda ay recycle garayso okay balaastikada nafteed ayaa nuucyada nuucu waxaa jira 500 sano nuucu waxaa jira 1000 sano soo balaastikada dhibaatada uu leeyahay ayaa ka garanaysaa markaa meel ku joogto ma aqbali karto inta waxaa xayawaanka ayaa cunaaya oo ku jiranaayo aad cayihiisa maasho oo intadiisa maasho okay taa aan su-aalihii ku soo noqdo marka mulkii su-aasheedii gaaska ku jira mususha gaaska magaciisa waxaa la yidhaahaa methane gaaska wuxuu la mid yahay gaaska cuntada ugu karsado natural gas oo kaleeto boosaneerada marka ay muddo joogto chemical reaction ayaa ka dhaca waxyaabaha ka samaysta waxaa ka mid ah gaaskaas waxaad aragteen musqulaha qaarkood tubooyinka loo sameeyo tubada taagan waa arkeenaan malaynayaa tubadaasayto waxaa waaye gaaskaasayto inuu baxo wuxuu ka mid yahay gaasaska hawada pollutionka ku sameeya ayuu ka mid yahay mida kaleeto gaaskaas waa inflammable sababta loo sii daynayo waxaa ka mid ah haddii qof musqulaha furan oo kaleeto uu sigaar cabo uu ku tuuro qarax ayaa ka dhacaya waayo methane-gaas uu gutaa methane-gaasna marka waxaa jira conversion system wax la yidhaaho qalab waxaa jira lagu xiro oo gaaskaasito tubad soo qaadayso oo jikada geynayso oo mishiinka cuntada lagu karsado ku xirmaayo ama lagu xiro boombalooyinka ama taankiska hadda gaaska lagu soo garto dad kale ayaa lagu kaydiyaa waa la gadaa andee cuntada ku karsan kartaa okay waxaa aad looga isticmaalaa wadamada populationkooda sida china wadamada aad u isticmaala ayay ka mid methane-gaaska oo saleegooyinka magaalooyinka yaryar oo musqulaha leh reerwan waxaa loogu xidhiraa qalabkaas ay cuntada ku karsadaan nalkana u shitaan biyaha haddii la kariyo iyo haddii kale hadday isku mid yihiin maxaadada su-aal fiican waay okay so biyaha chemicalskaa ku jira chemicalskaas waxay uga imaadeen musqusha maadaama chemicalska ku yimaadaan waxaa kaloo ku jiro biyaha waad aragteen dhadhankooda uu adagaya macnaheedu waxa waaye waxaa ku jira calciumka waxaad ku garanaysaa baaldiga aad biyaha ku shubataan muddo yar markuu joogo uu caddaanaya yacni nurad in la bariyo kale calcificationka waaye so kaalsadaas biyaha matalan markaad cabto keliyaha dhagaxa gala ayuu noqonaya haddaad cuntada ku karsatana sidii unbuu noqonaya matalan nuuradaas biyaha ku jirta nuurad يعني وضع كالسيفيكيشن أما كالسيوم أما كالسيوم هذه هي الكجران يعني هاي كالسيفيكيشن وكذا هاي يعني كالسيوم مقابل كبدين هاي ونورد أصلا يكون هذا كالسيوم فقط على يفتح على عايو ما كان يها كالسيوم أنا أبقى كالسيوم بينادي أيا بحاي وحصل على concentrate calcium iyo ambraishin iyo chemicals oo ammonia ay ka mid tahay ayaa soo baxay marka concentration ayaa fiican cuntada ku karsay cuntada noocan oo ku jirta hadaad suuq samayso oo suuq ku qabto waad si macaanaysa waad soo qisay okay dadka fiican u yeeshay laakiin effectively waad sen Soomaalida kaliya aad ayuu u badan yahay وحكينا بيوم عنا على لكن هو مطلق كسنة maybe I can ask you to
so chemicalska biyaha ku jira inaad kuleyso oo ka karsado inay wax ku sii karta maahan wax ay ka yaraynaysa yani adoontiida heerkeeda intaas ayay ila tahay صاحبتي أيوب جامعة السؤال والزيارة قشن أنا هذا وعاقد قشن كل القضاء والذكر فكا مثلا حاليا قشن كأس السحرة موجود لغة المقامة ورئيس السحرة من المقامة عندها دخل وضعص فقط قشن يريد إمارة في خمر وحاول عربي بوجود الولاء وذكر يجوز يريد إمارة في الرباط المعارض وحاولنا أسلوب المرة ركن السلوك عيد العهد وجسدنا أساس السماء قشن يريد قدر الكلام إيه يقول حافظه وأنه محاول وبس ماشي كل ما له عكس التاير فعكس التاير هذا الشيء بالشيء بالضبط عشان كذا ما سيكون لا كان كل وحاول عندي وقت هذا القارب والتنبؤية مثلا عشان يقولوا يقولوا وحافظ يقولوا هذول بعد يسوي تاير حال كأنه سلاس نعم ولا غير كلام هذا هو ما له عشان كذا وحسمينا يسيروا سمينا يا وليه بيها الكلمات الخطر المسامين حامل معه جوابها هو التصحيح أبو شيء سلوك الأغير الصومالها وحنا قمت السلام سمينا ما هي دين الإسلام كهذا دين الإسلام أنت جاء نوافذ المكان هذا القشن كهذا شيء يسكتي إيمان بالنسبة وحكى لك الرسول على المكان هذا بيدنا الأفراد الشرعية على لها إيمان كمشروع تساوية إيمان تبالغ عن الطريق marka waa waajib diin oo Soomaali agar oo muslim waxa marka ceeb anagoo Soomaali oo ka ahay hal qowm fahmi leh hadana in ka ilaahay si diin islaam asas xaq qaaday oo dadweyne halka ka ahay dad diinta haysan si sax ah ugu fahmaysan أمين السلامين أو هو كان سؤال يدير حاجة طريق وحقوق بين معايش ولدها حرمها الكلاسي سنة يكون فيها طريق الشيء لها بعد نسيها لو حكم إلى استشري لا يسوي شيء فصلها طريق إيجانس كبرنا أي كم تعين سريش سبعين كنا sidoo kale ugu muhiimsan aniga ila tahay dadka ka shaqeynaya shirkadahooda inay noqdaan dad ehel waawa qof walba kama shaqeyn karo dad keliya wax la barto waa takhasuska lagu soo sameeyaa dad ehel waa inay raadiyaan dadkaas ehel u ah marka waxay qayb ka qaadanayaan proseska intiisa kaleeto inuu si saxa ku dhamaado laakiin markay ka shaqeynayaan sida maanta oo jirto kale dad ehel wahayn waxaa dhibaatada waxaa waaye maxay ahayd sida ahayd uga sii daraya qashka xaafadda laga qaaday xaafad keligii macna ay soo kordhinsan waxyaabaha waxay jibkooda laga yaabaa ilmaha ka shaqeynayo maxay ahayd qashinka qoysas ka qaadaya waxa ugu yar xataa galoobsi xitaa ma wataan marka waxaa laga yaabaa inuu doolar inuu ka raadinayo qofkiisagu ka raadinayo laakiin naftiisii oo iga jihaadsan waxaa sida ay isla mid ah qoysaska maxay ahayd qashinka halkooda ugu bariyaan lagu barinayo sidoo kale hawlka oo u sahlan ee qashinka lagu yareyn karo hoosooda bileebarka marka laga hadlayo guriga cid walba qashinkeeda waxyaabaha ay ku yareyn karto waxyaaba fududwaayo haddii ay maxay ahayd ka go-an tahay in ay qashinka yareen anaga soomaalideeda dhaqan hore oo waxaa jiray anaga way soo gaarnay in dambiila isticmaalo hadda maanta waxaa la isticmaalaya dambiisha waxay ka caawinayaan qoyska in maxay ahayd maalin walba baca badan uu ku duukeen lahaa oo deegaanka ku dhammaan lahaa oo shaqeyn lahaa in maxay ahayd
oo ka faa'iidaysto dabiisha maalin walba suuq u qaato ka faa'iidaysto fursado ganacsigaana ka badan weli dabiisha dadka qaar ugu taagan waxaa kala qarooyinka laga samayn karaa ayagoo fashion laga samayn karaa gadaashooda ku samaysan karaan suuqa ku adeegi karaan maxay ahayd fursado aad u qiimo badan oo lacag laga samayn karo at the same time environmentka saaxiibka oo u wanaagsan oo badan oo la samayn karaa هذا كل وحياها وحياها تأثير الإنسان في بدنه وحدة على استعمال كل غيره ويسكن وسقيا استعمالها وحاجية وإنه على لها مثلا إنساني عافي شكلها في الوجود وكل فرصة استعماله لكن هو استعمالها أقوم هذه مرة فيها بطلع مرة فيها جزء أقصد بالاستعمال بمحاضرة وفرمان قشين أسوأ معي قشين كان بها بالاستعمال وحصل وحياة ويا كذي وحاوي فعي وجزء سنة وقالوا هذا السين كان محيها وكل منتج جزء الإسلام الزمن ولا ومن مسلم بسم الله شبكة الصومالي صوت السلكون Soalnya sampai sarkot waxay ka mid ahayd maxalla xaflada Soomaaliya halkan waa akhrinaya iyo wixii horey looga qoray kasoo sarkot waxay ka mid ahayd magaalooyinka adduunyada ugu nadiifsan biyaheeda nadiifiyey Afrika gaar ahaan dabcan waxaa muuqatay nidaam maarayn u jiro waa sax aniga intaan akhrinayo waxaan arkay in lagu jiray waa filaya laba meel oo loo astay magaalada in la geyn jiray lana guyi jiray marka si oo program oo under control waxaan samaynayaa xilligaas population number ku wacay Soomaaliya ama xamar loogu yidhaa ku nool social program ku nool قشيل كوليك هذا أول شيء هو متكتر الصوصات حاجة سكر الصوصات بيها وحمل العربي قال سوكيل كان لا هو غير مقصودني توقع الجمهورية هذا لا يا بيلا بيها تستير وقال أنت مسؤول بيني وقال بيلا بيها تستير وقال كم بقى بيلا تستجري أوله وكنترول أما قال نصف سيجري تصف حكم الاستراحة سؤال شيء الياس هل انت تقول كخشن كحلمة أستاذ عبدالله فكرة إن المنطقة مش سياسية هو لو أصل مرة يبعطينا يوم يبعثي كهذا فإذا كان حاضر خير واسطية كمان المنطقة مش سياسية كمان حلمة وحلمة الحافظة سبيس كمان أصلا هو هيستان حافظة بغالبا حلمة ترموني أنا عاصمة الدولة ملك يكشف أصلا مرة وبريء وفضلي وعملية مرة سبيسيس وخلاص ما تحمل كشف وحيد سوية من لو تقدر لو تشتغلي لو مش مسكين لو تخلص خلاص ذلك أول سؤال أنت سهلنا وبيها إيمانك سامي من وين أصبح كتبت سامي من وين ودولا المعارضة الأولى هي الدولة الحين وعلمك الغيرة عوائد ومشوبة حساسية أولك ومشوبة يبقى إلها كليها أولك ومشوبة فحيانا مصارنا العصر بوبليكات وحوائد pollution كان أولي يبيها يعيدها مكا أولي بسرطني هنا وخص تطوئي هو المطلع الله شكرا أنوي الله شكرا الله شكرا أستاذ أمين دولة دعنا حتى أي شيء نفع الله يستشهد يقول عمريس ميلا اللي ما أمين وحكي شو عمره مش سامية دولة دارنا ربع إني أسانيرش مش أشتغل بينها وقدر بينها أم كده بحلو أم هأستو أم ريسايكل والشركة أكفر ليست شيء والشركة الأولى من عشان أكفر ليست ريسايكل الحسنية سيكر أكفر ليست لكن واحد عند كونتر دولة أيضا واحد سايكل بين أشكال المنطقة حافظه ويريدها شابلي فاشل وليسوا طويلين يقولوا كان كنا نقوم كان صوني وبلاستيك الدولار وكمان كمان كنا هندلوا وسمينا عليها كمان
haddii bulshada ama haddii familka uu yahay ay think inay arrinta shaqada ka faa'iideyn karaan wixii ololiisha qaba oo guriga markaas ka faa'iideyn kara samanaanka keena oo domestic ay ka faa'iideystaan intaas ay ila tahay sida ganacsiga looga faa'iideysan kara ayaa ka hadashay waana barnaamij furan ganacsi ahaan in looga faa'iideysto barnaamijkan oo shirkadaha ay سؤال أمين وهدايا المدينة وكالة إسبتالة خشية إسبتالة عادمة خشية إسبتالة ما أهم خشية وأمدد المدينة كرو أما ميلو والكرمة إسبتالة وكيكوكا هايه إن الهاران إسنريترس إسبتال كوكوية له وهي شقوين أي قبطان وشقوين خاصة ومرات تعرفوا يعني ابن آدم جنكيس لرجوي وكتره هذا هو كان شيء جاي خشين هيو على عين اللوب يا لوب وروح بدل وعلاج سريع هي انت عمل عيال هذا سكتار عليه شو كده سكتار كده كده ولا ولا مين كده عليه شو تقول لا لكن كده ما هي مسؤولية موعد سوس إثارة ولا تباهي كشف كولا ما دام كيميكاليز ابن آدم جديد أي استعمالان إن هذا سيستم خاص أو إسبيتال كسر وأسرو ونكو وهما هي كشف مستمر خاص هذا أي يقول ويكشف عادي ما ومثلا أنت أنا إسبيتال هذا هذيك ورالي waxaa dhacday arday kamid ah ardayda postgraduate loo ka sheekeynaya these issues walaashiisa bug looga gooyey isbitaal skorka ka hornacay isbuuc kadib inta la wacay inta la gaariba laakaan mid soo doro meel ageena oo riyal oo gaari soo qaatay urta iyo rafaadka ka muuqday lugtaas darteed oo dhowr jawaan dhowr gaarigii saartay oo ووريه بيان الأسرع ركابي سي يعني أنا ما قلت وأنا مفكش شعبا وما سوت waxaa yoosaad su-aal weydiin soomaalida waxaa waaye dad oo indho furan sida sheegaya jaanis inuu ka jiro meesha lacag laga samayn karo marka maxaa ka hortaagan heerarka su-aasha waxaan filaa inay tahay aqoon daro iyo maxay ahayd wacyigooda ku aadan dhankaas oo aada liito dadka waxaa martay xilligan environmentka gaar ahaan qashinka iyo sida loo maangareyn lahaa uu ugu yeeray waa huba jaaniska dad badan oo ka faa'iidaysan doona way jiraan imaan doonaa laakiin waxaa moodaa gaaris inuu jiro maxay ahayd laga gaabinayo dhankaas guud ahaanba dadka qashin iyo dadku waxay u arkaan dadka waxaa bartay habkiyadii tahay marka qaar aniga waxaan bakiga ku dambeeyaa qayb ka mid wafdigaani intuu saykanika hoseeyey marka dadka dadkii weydiiyaan waxaas aan u sheego way kula yaabayaan waxay ku arkayaan qofka wax maalayacnaya ka shaqeynaya dadku wacyigooda aada liitaa marka ganacsatada waxaan filayaa inay maxay dowladka jaalisa ka miitaan su'aal kaloo weydiiso waxay yidhi issuegan oo water pollution gaar ahaan musqulaha iyo communicationka dhexe musqulaha iyo wadanka issue xaafad guud ku ekaan waxaan ognahay magaaladeena sewage system iyo guud ahaan magaalada muqdisho marka issue xaafad walba waa cid walba ayada u madax banaan boosaneeda marka waxaa waaye cid walba marka saxaradeeda iyo kaamideeda way dibna xaggan ay maxay sidada iyo lowda cagaya waxaa waaye dibna inaad kuma qoobo ishuuga marka waxay u baahan tahay dowladda hoose oo gobolka banaadir wasaaradda caafimaadka
director of the environment xafiiska magaalada environment inay isku tagaan oo maxay ahayd bulshada qaybada kala duwan ee gargarabka ay kaashadaan xal wadajira ee maxay ahayd laga gaaro ومأسستي كمان والله أنا متهيألي أنا كمان تشريف عبد اللطيف استعمار وقت كنت بالأنثى إلي وحسيت متهيألي بعد كرايسس بعد منتشر خصوصا نسينا حقوق فايدينه سورة الإسلام وكل أساسي مقتين غالية لبنات تعملها الإنجليزي سي برنامجنا سي سمستر الأول وبرنامج رمضان تصل